saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa gaaray deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana saraakiishu ay halkaasi u tageen maxkamadaynta 11 askari oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana askartan ay ku eedeysan yihiin in ay iibsadeen qoryihii ay dawladdu ku aamintay ugu horeyntii waxaa fadhiga maxkamadda ka hadlay gaashaanle dhexe Maxamed Xuseen Cumar oo ka mid ah xereerayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida garsoore eedeysanayaashan sidaan ognahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed ka tirsan yihiin ciidanka iyaga la mid ahayna wali goobta joogan waa kuwana geesiga dhan taagtaagan eedeysanayaasha ma jirin sabab ay shaqada uga tagaan oo ma dhihi karaan waxaan weyna caafimaad weyna ma dhihi karaan raashin weyna oo baahannahay ma dhihi karaan mushaara weyna ma dhihi karaan hadda maxkamaddu waa weydii kartaa maxkamadda hor fadhiyaan waxa la daba taagan yahay oo garabkooda la taagan yahay caafimaadkii asgari xanuunsado waa la qaadaa ambalaas yaalo caafimaadkii joogo baahina kama jirto anaga marqaati ka ah in xalay oo aan safar ka soo galnay gaadiidka aan saaray raashin oo saaray ma jirin marka sabab meeshan ay uga tagaan ma jiri karta sabab ay qoryaha iyo hantida ciidanka ay uga taan mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedeysanayaashan maadaama maxkamadda horteeda ay ka qirteen inay galeen dambigaasi lagu soo eedeeyay aysan jirin sabab kalifi karta shaqadooda inay ka tagaan aysan jirin sabab kalifi karta inay hantida ciidanka ka taan maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaa marka hore koow in laga mago hantida ciidanka ugu dambeyntii 10 kamid ah eedeysanayaasha ayay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah halka midka 11aadna lagu waayay eedii loo haystay sida uu ku dhawaaqay garsoore Yuunus Cabdullaahi Cumar bismillaahir rahmaanir rahiim xukun maxkamadeed maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii 7 2025 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal kow kormeere saddexaad ciidanka asluubta Soomaaliyeed 8593 Maxamed Jibriil Isaaq Cabdinuur 28 jir ah ina kaltuuma dooyo Xuseen ku dhashay Xamar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed labo kormeere labaad ciidanka asluubta Soomaaliyeed 89 Suleymaan Ali Cabdullaahi Maxamed 32 jir ina Xaawo Maxamed Nuur ku dhashay Xudur ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed saddex kormeere labaad ciidanka asluubta Soomaaliyeed 1982 Cabdi Xaaji Bashiir Aadan 28 jir ina Cadday Cabdiraxmaan Maxamed ku dhashay Xamar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed afar dable ciidanka asluubta Soomaaliyeed 2095 Maxamed Cabduqaadir Mire Wehliye 25 jir ina Xakiimo Cali Xayle ku dhashay Xamar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed shan dable ciidanka asluubta Soomaaliyeed 20 Ibarshan Cabdi Xuseen Cali Maxamed 31 jir ina Culamo Maxamed Xuseen ku dhashay Xamar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed lix laba alifle ciidanka asluubta Soomaaliyeed 86 konton Cusmaan Nuur Xasan Cabdille 32 jir ina Xaawo Cabdiyow Axmed ku dhashay Afgooye ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay 5 sano si kastaba ahaatee maxkamadaha kala duwan ee dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka soo muuqanayay askar ku eedeysan dambiye kala duwan waxaana askartaasi lagu xukumay xukunno kala duwan oo iskugu jira xabsi iyo sidoo kale dil toogasho